dhammaan marti sharafta joogta saraakiisha ciidamada kala duwan janarada taliyaasha ciidamada kala duwan saraakiil xigeenka leyli saraakiisha dablayda iyo dhammaan xaasaskooda iyo caruurtooda ciidamada qalabka sida oo dhan waa salaamaya waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka leyli saraakiisha ugu horeysay inay tababarkooda ku dhamaystaan dalka gudihiisa halkan wixii aan ka oran lahaa laba meelood bay ku qoran tahay mar sheekhi quraanka akhriyay baa inoo sheegay aayad ku habboon halkan aayadu inoo akhriyay oo tilmaamaysay ereyga askarta laga rabo ثم استقاموا وكلمة عربية مركز لفسرنا وحوي توسنان وحي كنت واحد من قانون ديسيبلين قولنا شعبك جامعتها ورشدها قناعسك دخاترته يجو واحد هذا إيرجع هذا ethics engineering ethics bank ethics business ethics دكتور ethics waxa ka xoog weyn oo laga soo dheegay oo ethics ka xoog badan discipline kuna waa kelmadda istiqaamo oo toosnaaday oo wixii bini aadmiga u daran ee xumaynaya ka baydhay wixii uu wanaagsanna qabtay aayadii ku xigta la mid baa haydo wa amila amalan saalih إلهي بآمنين نبي برميين ويدي أرجلوبين محي كدرين وعامل الصالح وطلوا واحد قبته محق ونكسن السؤال دوت بضله واحد قبته محق ونكسن إن عاد بناء نفتي بدباد ساو ونكسن إن عاد بناء من أورتاء ونكسن وإلهي كلامه إلهي بناء مو كلامه خليفة ومضى يوكل كذلك مركا بناء من بتجلس وشغال قبته أدوك بتكون أسكر ما qofku markuu shaqeeyo haduu lacag badan sameeyo kan bari lacag badan sameeyo xaragoodo socdo sadaqa yar buu bixiyaa laakiin qofka ciidanka naftiisa ilaahay siiyay isaga u qiimada ayuu u horeysay kuwa kale u noolaadaan shaqo ka waraysan la qabtana garar ma ay taqaano shaqo qofkii kale inuu noolaado adigu taade aad ugu hortay wax ka weyn garar maayo qolada ciidamada waxa ereyada coachka ama maamaha ciidamada caalamka waxa kamid ah askarigu ومرهدا حبضة وقف كسور شيء ومدير أيوه بين آدم عيب نفي لهاي جويين وأبوره وحوس حبضة ورهدا ودير أياه شركة وصوب وده بين آدم بدنا يخدم بيا وبابين أيوه كإيران أياه مركز عسكري وحبضة وحورهدا إنه بين آدم بدنا متجريه مركز قف كعسكري وكرجي تقرأ قاطر حبضة يسوي جاي وحنا بتجرنا يا ومدي سيارة نيه مركز دي برواقدي نختار ما تشيرين شركات العقل هنا ما تشيرتين هؤلاء هم يكونوا سووا كذا مجرين بيتس لتجا مجرين بابورية لا بيلو حرود مجرين هدي أرق قولكم فرديها أبلاه قولكم فرديها يا أسكرتوا أنا نفتو ده ديرو قديين وأنا حبيت يسوليين ولا قد ميتين وعمل صح توصل حاضر بقدر رواياتكم دي كده بيسي ادفع بالتي هي أحسن وحين يعتك سوق على الله وحماية عادي هدي الله وحماية أدوك وأنا أقول كبدل horta kelmadda askari waa sawaaxili asalkeeda halkaas ka timid oo markii waxay timid sida ay isticmaal soo galiyaan arigan kuriista 100 taasi way dambeynaysaa taa ku dheeran ma hadhow waan taariikhda iyo sheegi doonaa laakiin waxa weeye itbac billati hi ahsan shalay iyo maalin kasta oo dadka dhalinyaradu magaaladu ay caroodaan ama wax diidan yihiin oo ay waan buuqaynaa ama waxbay ka caroodaan أما قف لا طريق واضح قلتي حق ربنا عسكري بتشوتشيني يا قالوا عسكري ترافكي وحبل جابوا عرفوا فين كاير جارك فوشنا أما أنا تاير جارك فوش وسكبي أولا سامع هذا خبر بانكور بيرها يدفع بالتي هي أحسن بلاي دا سوق عتاق عسكري ترافكي دي بل كور هبيك ولا سوتشي أروتي سلت هبيك توكسور عاية توقي قبناية تورك تاجيان أما يحبط بكل فنيان كل عوا معايا اللي أبين هو يدي أبي حاسك سبويان بالله عليكم نفس كور أحسن هو أتى حاجة اللي هي يدفع بالتي هي أحسن إنه عرونين إن كأرجلين إن كدبتين
mid buluusa la dhaawacay dhagax baa lagu dhuftay mid buluusa xabad lagu dhuftay mid buluus baa ku dhintay lama raadiyo waa qolo mu lama idhaahdo lama daba galo xataa caruurtiisa cid uma araan qarankay u daayaan aabahooda wixii gaaray idfac billati hi ahsan markaasaanay ka daba tegeen markaasaanay ka aargoosaneen oo oranayaan ilaahu dadkayga soo hadiya wadada taagan hoos atus iyagaanu kala ilaynaa iyagaanu daafacaynaa dantoodaan ku shaqaynaynaa markaasaa kii caayay haddana dhowto uma hadda qeybleeyahay wallaahi ciidamadu way noo sameeyaan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يرقاها إلا الذين صبروا يا قاري كلا ذاتك صبر كلا يا صبر له وأسكرته بل كلام ده لا يشيء قال كلا تاك بدل مالك تاجوا يدوك وياتكم أتي هاي وران كالك كوا برد بكاني تاين تسان كلام فيها واحد وري أنا ردي يشيء ما دام أدبر وتير taariikhdan agelaysa taariikhda adduunka gali mayno way dheer tahay 2,000 sano laga soo tiriyaa disciplineka iyo doctoranka waa adagnan China dhigo mouth to zuba la adduunka oo dhammayso ka bilaabaado waa dhowtaan Soomaaliya af Soomaali ka turjumada waa baran doontaan magacyo badan baa arki doontaan soo ururiyo hal ujeedo ma loo socdaa sharka dil oo ka qaba dalka wanaag gunaha noolaado askari horsiinta soo dhamaata kolba meel laga guuraa inaga ciidankii u horeeyay Soomaaliland maalmo hore waan soo qaaday waxa la abuuray 1880 xadkii ugu horeeyay markii isticmaalka dhulku qaybsanayay ee la jeexay wuxuu noqday ka u dhaxeeya Djibouti iyo Seylac hal batalyan baa la sameeyay oo markaa xadka ilaaliya dhibaato mu lahayn xadkaasi bariga laba dawladood oo Yurub kala qaybsaday wadadu bay jeexeen atana la yar iyo calawooyin bay samaysteen laba boosna way dhigaan oo labada calan ka taagan yihiin batalyan baa la geeyay dhowr boqol nin ahaa oo dadkii la qoray ahaa oo aan markaa aad tababar u qaadan hub waana aan lahayn laakiin organizer ah waa ciidankii u horeeyay ee Soomaaliland ee meel laga abuuro dabeetana isla sanadaha 85 waxa dhaqdhaqaaqii daraawiishta abuurmay dabeetana ciidan baa loo sameeyay kala duwan kii u horeeyay wuxuu badnaa saraakiil Ingiriis ah iyo ajnabi kale oo isku jirjira Afrikaan leh Pakistan iyo India markaa India isku ahayd leh weerar bay qaadeen iyagoo dhayarsanaya Soomaalida fiiqfiiqare taagta daran inta heerir la ilaahay waxba iska celin kareen dhowr dagaal baa dhacay dhowrkii dagaal baa qolada Ingiriiseed baa lagu jabiyay kii ugu xoog weynaa dulka madooba isku soo qayshadeen ciidan xoog leh soo direen qolada daraawiishta baa loogu tagay ciidamo aan iska fiiloon nimankii dhan walba iska soo urursaday sheekha oo bariga dadkii raacsanaa ay farbadnaayeen ayaa halkaas isugu tagay oo Soomaaliland oo dhan ka kooban qoladiina maanta cusub bilaabaysa intaasoo hawla oo hore loo soo maro taariikhda akhri doontaan oo la idin dhigi doono iyo intaasoo fikradood waxaanu idin rabnaa inaad ku kordhisaan fikrado cusub iyo dardar cusub iyo kuwii loo aayo ee laga sheegay taariikhdooda inay noqotaan 34 sano ka bacdi wixii nool haddii Ilaahay yiraahdo maalintii maanta oo kale ahayd shir u soo fadhiista leer sarkaalaha noqdo maskaxdeedu wax badan ka guuxay waayo askarta anagu waxaanu soo gaarnay tii Ingiriiska salaami jirtay ee aad iyo aad u xarku jirtay xoogga waaweyn oo aan ku dayarno askariga waxaan idin sheegayaa markaa dhalinyarada maanta doonaysa aad maanta halka fadhidaan inaad dalka u hurtaan rag baa boqolaal ka waaweyn u horaya inaad taa iyo tuko u hurtaan rag nool iyo qaar dhintayba ka waaweyn ayay u horeen waxaa bilaabaysaa jidka ahaa aniga naftaydu waa inay ilaalisaa qaranka iyo danihiisa oo khatar walba u bareedhaa oo tan iyada dadka u hura dhimaantaan noqon oo saayeel garadana ma qaata askarina ma noqdo waa siyaaliyaal haddii kale wadaasaa bilaabaysa yaan ku dheeraynin maanta marka la yiraahdo maalinta uu kala joogay leer sarkaalka iyo ciidamada la tababaray waxa la yiraahdaa awal hore waxa la oran jiray wariyaa leer sarkaal jaamacad ka soo baxday fooda ku dheer
qalin dheer baad seetaa xaragadiya way dhamaatay xiniyahaaga banaanka soo dhig kulida ko xiniyahaaga banaanka soo dhig horta ma laydin sheegay waa qalinkii horeeyay wali meel idinku yiri ko qolada shaqada qaran bay tiri halka banaanka soo dhig waa la isku soo kordhay ereyga waa la bedelayaa waa maalintii u horeysay ee hablo Somaliland oo saraakiil u soo diyaar garoobay oo waxa aan sheegay inay soo mareen ay soo fariistaan inay ka dhis noqdaan oo la mid noqdaan hawsha qaranka ay u qabtaan awl hore waa lagu horjoogay aad baan soo dhaweynay hablaha hawsha ka sheekeeyay qaar ka adigu soo bareeray waa bilow wanaagsan maanta wixii ka dambeeyay la oran maayo xiniyahaaga banaanka soo dhig ereygaas waa dhamaaday waa la nagu soo kordhay qoladeenii istaawiraysan rag ahayd maanta waxaynu oranaynaa qabkaaga iyo raganimadaada banaanka soo dhig iyo inanimadaada qof walba qabkaaga banaanka la kaalay waa mamnuuc raiiska xiriyahaaga banaanka soo dhig wariyaa waa qabkaaga xaggaa soo dhig hablahana waa soo dhaweynaya waa bilow wanaagsan aad iyo aad baan u faraxsanahay shaqada qaranka runtii waynu u baahnayn waxaan isleeyahay Soomaaliland waxay u baahan tahay dhaqaalaha inaga haya in jaamacadaha ardayda la isu bedbedelo oo ka laascaanoodii ceergaabo joogana boorami hargeysa la keeno kana xagga ka dhigto laakiin dhaqaali bayna xadidayo oo ardaygii halka lagu bahan karayo waa chance-ka anagu aanu hele wanaagsanaa meeraysaan laakiin haddaynu taa weynay xulaas kasta qaranka ku aatay waxaan wadana shaqo qaran waanu ay doonaa waayo 10 sano dhowr 10 sano ka bacdi waxa soo baxay dad shaqaano saaxiibo oo walaalaha oo iskaranay waynu kala qoqobanahay dhaqaalihii batay jaamacadihii batay telefoonkan iyo isgaarsiintan badatay gaarigan dheereeyay batay wuxuu keenay in dadkii kala go'doomaan oo gobol waliba inanka reer Hargeysa inanka jooga burco ama laascaanood ama sayl ama boorame iyo ka China jooga si uu wada hadla labadaba Facebook kala hadla Facebook wala sheekaysta waa laba qof bini aadmiyo waxay fiir ma kala yaqaan dadkii ba kala qoqobmay mar hadduu kala qoqobmana wax wada qabsan kara baay dadkii laba waxa laga cararay oo inuu hal la bedelo dictator iyo inay hawshu meel ku ururto centralized hal dejiye maamulka waxaad moodaa inuu dhan faa'iido ka yeeshay dhan khasaare ka yeeshay markii maamulka la daadishiyay magaalo waliba kaligeed baa isfaamushay imika waxaan soo diray inuu meeyarka magaalada deegaanka noqdo iyo meeyarka la isku bedelaan tolo kay faa'iido badnay حتى مركو قفك مجالات أوروب كشقية هيبت مالي لبض مجالات إمك إذا ما أنا سكبت داري يبرويس كا يمرترياس بدري هيبت بيلين وقارن بين موتشريا لكن يسدوه يميركي يقول يميركي ورشقين يسي حتى هاوشي الإسبرين كأن أمينت مجالوك أيا صعلا ويوادات صار قرنا اسمه أركان هيبت دي قرنك مركز شقة قرا واحد دورنا إن قرن كيسكون حقلينه إن ذكر شو أبوه إن النفريد برتان وحنا تكون بريا قلنا شغالنا صاحبنا وهذا كلام سكتش على هاي مركي اللي هو شاي أو صوب حاي أنتي نبلوده ولا صوب بلوده وين نسيبه نكسر وح شقتك جاي وح كورس تجاي إذا كان ما تفرد أنت عشان كبده كوا كلا إن شاء الله وصاص وكلا شانس كوهري دونان واحد كدون يا إذا كان ما دام أنا هوش ولا بلوني إن إنه قلنا كوا أبتر ستقرنك ورم هذا شقاد قرنك بعض شقاد قرنك oo yaad ka ahayd shaqo qaran 2008 oo yaad ka sii ahayd shiribka iyagu waa shaqo qaran 2020 inaynu halka marino oo dadkan ka saarna kala qoqobnaanta iyo isku xidhaashahana waa rajaynaya aad iyo aad oo mahadsantiin ciidamada waan hambalyeynaya hawsha qaranka waa ku sharfan yihiin waan ku amaanayaa إذا ما فوقنا يسيء أنا بشر بانو سينا هينه أو قارب بدنا من كان عيرة يو أستاذ واضق يجوا كارد اسمه نروح هذي الشرعي نكان اللي بحلا لا تشان كايم كعيد ما رفض يا أضيق وين مودسان يسوي لي السركال محمد كان معلن وهذا صار هوري يرو بريتات كان ساعات يلا يروح بحش وحوين أنت هذا كلام صار وأنت على كل مقطب وحوين هالمودينا بريتال كان سوق جالس بريتو وحوين ما سادور سال بركة سوق جالس إرنا وان تكون راعية أو تنزان حسين أحمد اليوم وحوها شقادة عيدة كمركز كشان أديك تربان وغنيسان
nacam dadkana safkaran maysaan waa ka disbilin badantiin waa iska jeceshiin dhaawac baa isku qaadaysaan dhimashada kala boobisan adigu noolow meel baa wax ku wada cunaysaa naf ilaahay oo walaalooday baa noqonaysaa caruurtiina iska jeclaanaysa isdhexgalkiina isdhexgal kala badnaanaya hadhowta ka heli maysaan dadkan goologooda u noole adduunyada raadsanaya hadhowta idinku taa kari maysaan markaa tan qabsataan sida axmed baa noqonaysaa dhigta war meel discipline loo dadka ismaqlayo oo nidaam la egeeyay shaqaduna waa taa waxaan idin sheegay qolada militariga oo dee qoladana waa jaamiciyiin shaqo qaran laba degree weystaan degree jaamacada weystaan kii shaqo qaran weystaan kii saddexaad baa siinaysaa oo markaa dee wax xisaabtamana gabadha wax la siinaya nimankana la saddex degree baan siinay war wax xisaabtamana ya taariikh mushaarista waa wax xisaabtamana haddii shaqo qaran nahay qolada jaranada ayaa wala xisaabtamana 3 degree ciyaar ma oo dalka qoladan u taansan soo qaaday xagga ka timidna harta 3 degree baan seenay deena soo gaar naan haasan adina aad iyo aad baa mahadsantiin wassalaamu calaykum.